munaasabad si heersaraa loo soo qabanqaabiyey looguna dabaaldegaya 1 Luulyo 52 guuradii ka soo wareegatay markii gobolada Koonfureed ay xornimada ka qaateen gumeystii Talyaaniga iyo midowgii gobolada Koonfur iyo Waqooyi ee Soomaaliya ayaa xalay lagu xusay magaalada Cape Town ee wadankani Koonfur Afrika. munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool wadankani Koonfur Afrika. inta ay socotay munaasabada ayaa waxaa khudbad looga hadlayay halgankii dhalinyaradii Aswael iyo weliba maalintani xornimada ka soo jeediyay qaar ka mid ah ka soo qayb galayaashii munaasabadani. Sooreer Faarax Samatar oo ka mid ah haweenkii ciidamada booliska ayaa ugu horeyn halkaasi ka hadashay iyadoona ka warbixisay maalintani ku weyn shacabka Soomaaliyeed. waxaan leeyahay calanka waa loo soo dhintay jibta duwaanan helin inta magacyada aan sheegayna caalmayda ninkeligu milyan qofood oo Soomaaliya lagu leeyahay waxay masaafiriyeen wax gaasiraha ku dhamaaday calankeeda ujeedada oo buluuga cirka uwe waxaa ku wasawiran سنتي وعبرتنا سياسيين أقوياء هذا بريئة هواية قطعها الرياض ما مسؤول بعض الصحافة لما يجي محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maalintii midowgii Soomaaliya waa maalintii qarannimada Soomaaliya ay midowday markii hambali ayaanu leenahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ma garat ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waa mid farxadii tii ugu weyneed. xafladani lagu maamuusay 1 Luulyo ayaa noqonaysa tii ugu ballaarneed ee ka dhacday wadankani Koonfur Afrika iyadoona sanad walba marka la gaaro xiliyadan oo kale ay Soomaalidu weynayaan maalintani 1 Luulyo oo ku astaysan maalintii xornimada gobolada Koonfureed isla markaana ay midoobeen gobolada Waqooyi iyo Koonfureed ee wadanka Soomaaliya. Ismaaciil Cabdulle Sabriye, Universal TV, Cape Town.